asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan janaalkan soo dhowaada haddaba muuqaalkeenna maanta waxaan uga hadlaynaa musalsalka dhaawac ee qalbiga dabcan xalqadiisa soddonaad iyo muuqaalkan dhexdiisa waxaan uga hadlaynaa yacni maalin hore ayaa la baahiyey mashquul jira awgiis ee la soo wadaagi waayey waxaa la baahiyey dabcan musalsalka xalqadiisii u dambeysay inkastoo hadda kahor aan idiin sheegnayba ayna noqotay xalqadii aan hadda kahor idiin sheegnay haddaba musalsalka waxaa la baahiyey xalqada uu dhammaan lahaa sidoo kale musalsalkan siisa labaad ma jiro ee xalqad halkaas ayuu ku egyahay haddaba ugoreyntii musalsalkan waxa uu dhammaan doonaa xalqadiisa u dambeysa la daawan doonaa 21 February ee sanadkan aan ku jirno 2022 ayuu dhammaanayaa sidoo kale xalqadaasina waa xalqada 32 waxa noo hadhay oo keliya waa 2 week oo keliya ama 2 toddobaad waa 31 iyo 32 inkastoo xalqada soddonaad caawa la daawan doonaba marka waxa hadhay waa 2 xalqadood oo keliya iyo tan caawa soo baxaysa isla maanta isniinta soo baxaysa ee galabta ilaa fiidka laga daawan doono telefishinka ATV marka asxaabta saa ula socda musalsalka waxa noo hadhay oo keliya waa 2 xalqadood haddaba maadaama ay soo baxaysa xalqadu caawa bal haan waxoogaa yara falanqayno maadaama labada goosgoosba ay muhiim ahaayeen inkastoon lasoo daahnay haddaba goosgooska koobaad waxaan ku arkaynaa ugu horreyntii saan wada ognahay xalqadii u dambeysay soo falanqeeyey waxaan sheegay inuu cadnaan nool yahay tan ayaa ka dambeysay inaan dhaho cadnaan waa u nool yahay qoftan firaayaa lagu magacaaba kadib markii guriga timaado waxay dhahaysaa cadnaan ma uusan dhiman markaas kabacdi azaadi ayaa su-aal weydiinaysa waxay dhahaysaa ma hubtaa in uusan dhiman haddana micnaha halkaas farxad ugamaana jeedin sida fariid yacni ma sheegi kara arrinkaas waxaan u malaynayaa in uu been yahay oo dabcan ay haddii doon waxay dhihi kartaa cadnaan ma uusan dhiman ee waa la dilay ayay dhihi kartaa waa iska taqantiin turkida dhaqankooda marka way iska soo qaateen hadalkaa laga yaabaa soo marka isla goosgooska koowaad dhexdiisa waxaan ku arkaynaa haddana firaayaa gabadheedii yareeda yamaan walaalaha haayeen hadda kahor taxnaa lagu soo daray waxaa sitiin gabadha cusba lagu soo daray oo kule hooyadeeda hooye ma adiga ayaa dilay cadnaan sanjaag saade isla markaana waxaa dhegeysanayay ninkii lagu magacaabayey yamaan ayaa dhegeysanayay haddaba goosgooska koowaad dhexdiisa haddana waxaa arkaynaa fariid oo soo helay ma sheegi kara anigu waxaas magac ma aqaani laakiin waa waxaan yare sheega in yacni gabdhuhu ay uur leeyihiin iyo in kale ayuu soo qaadayaa cayshe ayuu keenayaa cayshana wax dhahaysa halkeed ka heshay markaas kabacdi fariid waxuu dhahayaa mar kale miyaa noqonayaa aabe goosgooska koowaad kolley waxoogaa yar waan ka tegay laakiin muhiimadda ugu weyneyd intaas ayay ahayd haddaba goosgooska labaad haddii aan u nimana ayaa wuxuu ka bilaabanayaa asaguna fariid iyo firaaye is hor fadhiya markaas kabacdi fariid marwa firaaye ayuu dhahayaa aabbahayga lama dilin ee wale aabbahayga yacni ma dhimanin ama micnaha saas shilkaas kuma dhimanin ee waa la dilay qofkii dilayna ballan waa inaan soo qabto ama gacan ku dhiiglaha aabbahay dilo waa inaan soo qabto cadaaladdan waa marsiin doonaa markaas kabacdi fariid oo waxaana la tusayaa babaara iyo kombyuutarada qofka aabihii dilay haddaba firaaya haddana hadlayso waxay dhahaysaa wiilkayga dartii ballan waayo inaan dunida u gubo yacni yamaan ayay ka hadlaysaa haddaba isla goosgooska horena waxaan kusoo aragnay ninkan lagu magacaabo yamaan oo leh dabcan hadda kadib gurigan ayaan ku wada noolaanaynaa haddaba isla goosgooska labaad dhexdiisa haddana waxaan ku arkaynaa qoftii azaade ahayd oo alaabteeda intay arursatay baxaysa markaas kabacdi waxay dhahaysaa azaade firaaye inta ka hor timaado waxa dhacaya in mas-uulka mehi la soco firaayana waxay dhahaysaa azaade meel aliyo meel u baxsanaysid ma jirto markaas kabacdi haddana isla azaade ay hadlayso waxay dhahaysaa aniga ma baxsanayay ayada oo qaylinaysa ma sheegi kari waxay dharkeeda u arustay meesha uga tagayso inay firaaye ka cabsanayso inay wax kale ka cabsanayso qoftaas muuj waxay u tagayso haddaba maadaama imtixaanuhu gabagaba yahay dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in ay azaade saa kaga tagi doonto labada xalqadood hadhayna wiilkeeda uu soo afjari doono iyo dabcan wixii cadaaladi noqoto wiilkeeda soo afjari doono inkastoo aan garan doonin labada xalqadood micnaha say noqon doonaan siba xalqad u dambeysa qofka cadaaladda la marin doono iyo qofka xabsi galaya qofka badbaadaya iyo in la heshiin doono ma sheegi kari yacni taxanahan badan haddaan qiso dhabtiisa eegno fariid iyo yamaan ayaa ka hadlaysaa labada saaxiib ee isqiyaanay ayay keliya ka hadlaysaa maxaa haddana yamaan ayaa argudasho bilaabay markuu ogaaday in cadnaan sanjaag saada u dhashay haddaba haddii aan goosgooska intiisa ugu dambeysna eegno waxaan arkaynaa yamaan gabadha yareeda walaalaha haayeen ee faraayana dhashay oo dabcan ayadu gaari ku jirta nin ayaa soo karaysanaysa waxay dhahaysaa cayshe kasoo xaf ama kala soo orod boorsadeeda kabacdi wuu kala soo ordayaa cayshe way soo daba ordaysaa markaas kabacdi wuxuu dhahayaa iska socaya dhahaysaa gaadhigii ayaa waxaa dhacda iyadoo eegaysa in ay marsiiso sababta ognahay cayshe ayaduna waxa ay leedahay hadda uur laakiin lama hubo laakiin dabcan haa uur way leedahay isla goosgooska laba dhexdeedna loogu sheegay oo ay lahaayeen
Fariid ay ku lahayd. Marka hadda ilmaheena uu dhasho waxaan ku korinaynaa Patagonia, ama ilmaheena yar hadda caloosheeda ku jira marka uu dhasho waxaan ku korinaa Patagonia. Marka gaariga ay qoftaasi marsiisay waxa laga yaabaa Caysha inay halkaasi ku weydo isla cunugteedii ama ilmihii yaraa kale ama cunugii labaad ay wadatay inay qoftaas sabab u noqoto in ay dhimato. Dabcan ama qoftaas sabab ay u noqoto in ilmaha yar dhinto. Sidoo kale ilmihii hore aan ogeyn waxaa dilay Hande ayaa dishay, oo Hande ayaa dishay ay ahayd. Marka kanna inuu ka dhinto runtii waa murugadeeda ay leedahay. Kolley way argudanayaan gabadha yar waxa u sameysay arrinkaas aniga runtii ma sheegi karay, iyo cugdada uu qabto Caysha intay cugdad Caysha u qaali lahayd Hande iyadoo cugdado qaada dhantaba. Kolley hadda Hande wax kale ayaa laga dhadhacsiyay, oo Hande waxa laga dhadhacsiyay ama ay ka aaminsan tahay in ay tahay xaaska walaalkeeda, maadaama uu Yamaan qabo gabadha yarna ay yihiin gabadha yar Yamaanna ay walaalo yihiin. Hande marka kuma si sifaadaysa ay la tahay waxay ka damacsan tahay Fariid iyo Cayshana ma sheegi karo runtii, oo waata mar walba daba joogta oo mar walba daba taagan. Haddaba marka ay gaariga tirsiiso hooyada la hadlaysaa waxay dhahaysaa hooyo aniga waxun ayaan sameeyay, macnaha waxay ka wadaa hooyo aan shil ayaan geystay. Isla markaana kaamirada waxaana lagu qabanaya ninkii Fariida oo akhbaarta in loo sheegay wejigiisa laga dareemayo, laakiin ma sheegi karin in loo sheegay, laakiin wejigiisa ayaa laga dareemay akhbaarta loo sheegay qof naxsan ayuu u ekaa. Markaas ka bacdi haddaba gooskoosku intaas ayuu ku egyahay gebi ahaantiisaba. Kolley xalqadu ma fogo, maalinteeda la daawan lahaana waaba maanta. Balberiya faaladeeda ayaanu eegi doonaa insha Allahu tacaala, faaladeeda oo dhammaystiran beritoole galabtii ama aroortii ayaa insha Allah soo faalayn doonaa xalqada 30aad faaladeeda oo dhammaystiran. Marka waxaan idiin sheegaynaa asxaabta qiimaha badan ku xiran janaalkan inta xanaa halkaasi uu ku egyahay, halkaasna uu ku dhammaanayo 32daas xalqadood oo kaliya inuu taxanaa ku dhammaanayo, halkaasna nagu macasalaamaynayo. Bal waxyaalihii u dambeeyay ama masaladii u dambeeyay astaan bilowda dhan commentiga dhowr ka mid nagula wadaag si aan u soo faalayno oo ugu bedelo dhanka dhaawaca qalbiga. Waa mahadsantahay ka bacdi anigoo saaxiibkiina Khalid waxaan idinkaga tagayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.